qur'aankuna wanaaga wuu sheegayaa xumaantana wuu sheegayaa labadaba micnaha wuu wada sheegayaa waa la yaabe fikradani halkeebay ka timid waa sababta dadka ugu badan ay ka aaminsan yihiin islaamka arrimo fara badan oo xumaana waxaana u haystaan dad cadho badan xumaantuna markasta ka soo horeyso laakiin aniga waxay la tahay waxaasoo dhan inay yihiin barabagaando oo been laga abuuranayo islaamka waxaana sabab u ah waxaasoo dhan oon anigu isleeyahay waa warbaahinta laakiin wararka la baahinaya waa been abuurad waa warar been abuurada runaantii Garayser waa uu la yaabay kadib markii uu akhriyay aayadda 136 ee suuratul baqara xaqiiqooyin fara badanna waa ku ogaaday kitaabka quraanka kariimka waxaanu ilaahay quraankiisa kariimka ku yiri قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. kadib Garayser markii uu helay aayadaas waxa uu ogaaday inay nabiyullaahi ciise nabinimo u aaminsan yihiin ee aanay u aaminsanayn inankii ilaahay oo kaliya uu yahay nabi arrintaasna diinta islaamka oo kaliya ayaa aaminsan diimaha kale waxyaalo kale ay ka sheekeeyaan